Ku soo dhawaada daawadayaal qaybtii koowaad ee buugga sheeko-faneedda ah ee la magac baxay Saxarla oo uu qoray Faarax Maxamuud. Buuggaas oo aan idinkala wadaagi doono macluumaadyo iyo xogo kooban oo ku saabsan. Waxaanu ku bilaabmayaa buuggu sida tan. Iyada oo daalan gaajana kaxla ah afkiina jiilay ayaa gaadhigii sabaaxa ahaa ee ay la socotay ceelgaab soo joogsaday. Waxay gashanayd kurdad yar oo korkeeda ku idlaatay oo dhinac kasta ka daloosha. Kaba ma ay gashanayn, waxaase cagaha ugu duubnaa maro qalal ah oo ay jeexjeexday si ay dhagaxa iyo qodaxda isaga ilaaliso. Inkasta oo cagaha maro ugu duubnayd, haddana waxaa marada korkeeda qariyay dhiig, kaasi oo ka markhaati kacaya cagaaga iyo darxumada ay soo martay intay cidla ciirsilada kelideed cararaysay. Waxay ahayd goor maqrib ku dhow oo qorraxdu sii liicayso. Baabuurkii ayaa laga wada degay oo qof kastaana shandadiisii ayuu dacalka qabsaday. Dadka qaarkood waxaa sugayay eheladoodii, waxayna bilaabeen inay dhundhunkadaan iyagoo soo dhaweynaya. Intii soo dhaweynta iyo dhabana isdhunkadku socdeen, Saxarli waxay daawanaysay gaadhiga guudkiisa, waxaanay ahayd ruuxii ugu dambeeyey ee ka soo dega gaadhiga. Bari iyo galbeed ayay eegtay oo dhinacay u dhaqaaqdo ayay garan weyday. Dhinaca galbeedka ayay jalleecday, mise waxay aragtay qorraxdii oo baalka sii dhigaysa iyo mugdigii oo dhinac walba ka soo ururay. Waxaa ku abuurmay walwal iyo walbahaar iyo cabsi ka duwan midii ay miyiga ku taqiinay. Waxaanay soo xasuusatay hadallo ay islaamaha reer baadiyaha ah ka maqli jirtay oo ay ka mid ahaayeen: magaalo sideedaba tuug kalkaal iyo nahaab ayaa isugu yimaad. Intii ay taagnayd meeshii uu ka dhaqaaqay gaadhigay la socotay ee ay marba dhinac eegaysay ayay qorraxdii si fiican godka ugu libidhay. Gudcurkiina isku soo gadaamay. Dadkii suuqa u soo dhaadhacayna waxa ay bilaabeen inay guryahooda u carraabaan, iyaga oo ka cararaya mugdiga iyo madowga. Meel dhinaca waqooyi ka xigta ayay ku aragtay basas taagan oo dad badani ku xoonsan yihiin, waxaanay dal la-aan ugu dhaqaaqday xaggii basasku ka baxayeen. Waxaa bas kasta garab taagnaa niman dhalinyaro ah oo xoog u qaylinaya, isla markaana sheegaya magacyada goobahay basasku u socdaan. Magacyada goobihii ay ku dhawaaqayeenna waxaa ka mid ahaa Howlwadaag, Karaan, Hodan, Dayniile, Boondheere, Siinaay iyo Siigaale. Saxarlo oo cabsidii adduunku isugu soo ururtay ayaa ku fakartay inay goobahaas dadku u carraabaya iska aado. Waxayna u dhaqaaqday xaggii baskii Kaaraanu socday. Intay ninkii qaylinayay ee kirishbayga ahaa dhinaciisa istaagtay iyadoo wejigeeda cabsiyi ka muuqdo, ayay xaggii albaabka gaadhiga u dhaqaaqday. Inta uu ninkii kirishbayga ahaa garabkii Saxarlo xoog ugu dhegay ayaa iyada oo jaranjaradii gaadhiga sii fuulaysa ku yidhi: yarey, yaa kula socda? Saxarlo ayaa cod gibin ah oo daal iyo rafaad badani ka muuqdo ugu tidhi: cidna. Isagoo weli garabka haya ayuu weydiiyey inay lacag haysato iyo in kale. Kadibna madaxa ayay ruxday iyada oo ka wadamaya. Intuu xoog u tukhuntukhiyey ayuu ku yidhi: ka dhaqaaq, isla wareegta yahay. Saxarlo oo yaaban oo garalla dhinacay u dhaqaaqda ayaa bas kale agteeda soo istaagay. Haweeney dadkii baska ka soo degay ka mid ah ayaa waxay isa salaameen haweeney kale oo baska soo joogsaday sugaysay. Haweeneydii baska ka soo degtay ayaa haweeneydii kale ee baska sugaysay weydiisay: naacaasho, iska waran, baryaha laguma arkine. Haweeneydii baska sugaysay ayaa ugu jawaabtay: waa nabade, adigu reerkii ka waran. Intii ay labada dumar ahi wada hadlayeen, Saxarli sidii qof garanaya ayaa intay istaagtay afkooda u daawanaysay. Haweeneydii baska sugaysay ayaa weydiisay tii baska ka soo degtay xilligan maqaariibta ah meesha ay u socoto. Waxay ugu jawaabtay inay suuqa u socoto oo caruurteeda suuqa Xamar Weyne dhar uga soo iibinayso. Tii kale ayaa intay afka gacanta gelisay tiri: alla waan ilaaway, ilay beritoole waa ciid. Markii ay Saxarli hadalkaa maqashay, waxay xasuusatay saaxiibadeed Sugan oo maalmaha ciidda dhar cusub oo qurux badan waalidkeed u soo iibin jireen, iyo su-aalihii ay Sugan weydiin jirtay ee ahaa: miyaan adiga dharka ciidda laguu soo iibin? Iyo jawaabtii ay siin jirtay ee ahayd: aniga hooyaday way dhimatay. Waxay Saxarli gashay riyo dheer oo hooyadeed dib u xasuusisay. Waxaanay sawiratay iyada iyo hooyadeed oo intay suuqa isku raaceen ay u iibinayso dhar qurux badan, iyadana ay ka muuqato farxad iyo reerayn. Waxayse goor dambe ku soo baraarugtay iyadoo labadii haweenaha isleeyihiin maca salaama iyo ciid mubaarak.
haweenaydii suuqa u socotay ayay iska daba gashay si ay u aragto waxyaabaha suuqa lagu kala iibsado. maadaama uu gabalkii sii madoobaaday, waxay ku dadaalaysay inaanay ka lumin haweenayda ay ku cagdartay ee ay daba socoto, isla markaana haweenaydu aanay dareemin inay cidi daba socoto. aakhirkiina waxay gaadheen suuqii xamar weyne oo sida dharaarta u iftiimaya. weligeed daayaheeda ma saarin meel la mid ah, waxaana ku dhacay indho daraandar iyo ashqaraar, waxaana ka yaabiyey bilicda meesha ka muuqata ee ay ka midka ahaayeen dhalaalka iyo iftiinka suuqa, walacwalacda nalalka, quruxda dharka iyo alaabooyinka kala duwan ee la iibinayo. dad badan oo suuqa wax ka iibsanaya waxaa la socday ubadkoodii oo dharka ciidda loo iibinayo. waxaase saxarla aada uga yaabiyey quruxda iyo dhalaalka ka muuqda hablaha yaryar ee da-deeda ah korkooda ee waalidkeed la socday. waxaanay niyadda iska tidhi, adigaba haddii ay hooyadaa noolaan lahayd sidooda oo kale ayaad u dhalaali lahayd. inkastoo saxarla hooyadeed dhimatay iyadoo yar oo xitaa aanay xasuusan karin siday u ekayd midabkeeda iyo muuqaalkeeda toonna, haddana waxay hooyadeed mar walba u ahayd muraayadda ay iska daawato ama ka milicsato duruufaha ay mar walba ku sugan tahay ama ku gadaaman. waxaanay mararka qaarkood iska sawiran jirtay iyadoo hooyadeed u sheekaynayso ama wax u iibinayso. sidoo kale waxaa markastoo ay hooyadeed xusuusataba niyadeeda kusoo dhici jiray walaalkeed Samaale. inkasta oo uu ka yaraa, haddana waxay sawiran jirtay isagoo nin weyn ah oo la socda ama caawinaya. waxaa saxarla dukaan ay daawanaysay agteeda taagnaa gabadh yar oo ay qiyaastii isku da-yihiin oo aada u xaragoonaysa, isla markaana xidhan kurdad aada u qurux badan, kaba madow oo aada loo soo dhalaaliyey, timahana si fiican loogu soo feedhay oo muudmuudsanaysa nacnac buuran oo qori ka taagan yahay. saxarli kurdad ka gaaban oo dhowr meelood ka jeexjeexan ayay gashanay, wax kaba ahna ma ay sidan, timuhuna intay aada ugu baxeen ayay ku raamaysteen. saxarle iyo gabadhii yarayd ee ag taagnayd ayaa isku dhaygagay, iyada oo uu midba midda kale la yaabanaa. cabbaar markii saxarle iyo gabadhii yarayd ee xaragoonaysay isdaawanayeen, ayay tii yarayd intay dhaqaaqday hooyadeed dhinaca kale ka martay. saxarle waxay isdareensiisay inay gabadhu darxumadeeda iyo aradka ka muuqda ka baqday. markii gabadhii yarayd ee xaragoonaysay dharkii ciidda loo iibiyey, ayay hooyadeed gacanta qabatay oo ku tidhi, inakeen hooya waa aynu daahnaye. markii ay dhowr tallaabo socdeenna, gabadhii yarayd ayaa intay saxarle dib u soo eegtay gacanta u soo haadisay, iyadoo ka wada nabadgelyo. waxaanay gacanta sii ruxaysay ilaa intii ay mawjad dad ah oo isdhexyaacaya kaga libdhaysay. saxarle oo weli meeshii taagan oo ku indho daraandarsan adduunka la kala iibsanaya iyo waxa khalqi isdhaafaya ayaa mar keliya leyrhkii dam yidhi. dadkii dukaamada iibinaya ayaa buuq iyo qayle isku daray. qaar ka mid ahina waxay bilaabeen inay faanuusya iyo leyrtiriigya shitaan, se intoodii badnayd waxay bilaabeen inay xidhaan meheradahoogii si aan alaabta looga xadin. dadkii adeega u yimid ayaa iyaguna waxay bilaabeen inay jidadkii yaryaraa ee suuqa isku jiidhaan, iyagoo ka cabsi qaba in tuugta suuqa ku jirtaa waxyeeleeyaan ama alaabta ay iibsadeen ka boobaan. kuwii baabuurta watayna waxay bilaabeen inay baabuurtoodii kaxaystaan, halkay intii lugeynaysayna u kala dareereen istaanadii ay basaska iyo tagaasidu ka baxayeen. saxarle iyo habeen madow ayaa loo kala tegay, isla markiibana waxaa ku abuurmay cabsi aan la malayn karin. markii ay aragtay in dadka badankoodii suuqa ku kala tageen, ayaa waxay iska daba gashay laba haween ah oo suuqa wax ka iibsaday. waxaanay dhex xuleen luqluqyo madow oo laga caraabay. waxaa meel kasta qayle iyo isku daray bisadihii iyo aydii suuq joogta ahayd. waxaana dhowr jeer saxarle ka horbooday oo ka naxiyey bisada is-eryanaya. naxdin ayaanay lugaha dhaqaajin kari weyday oo dhammaan jidhkeedu la gariiray. inkasta oo ay dadka ka maqli jirtay bisadaha iyo ayda, haddana weligeed ma arkin. cidii ayda iyo bisadahana waxay u malaynaysay inay yihiin bahalo wax cuna. sidii ay u cararaysay ayaa waxay ku soo dhexdhacday suuqii hilibka oo boqolaal bisada iyo ay ahi hadhaagii hilibka iyo lafihii ku kala boobayaan. naxdintii iyo argagixii ayaanay labadii haween ahaa ee ay daba socotay ka luntay. markaas ayay bilowday inay aayar socoto, iyadoo hareeraha iyo xagga dambe iska eegaysa oo cabsigii ku jirto. waxay socotaba waxay ku soo baxday laba wiil iyo gabadh gidaar fadhiya oo sheekaysanaya. qiyaastii wiil saxarla dhowr sanno ka weyn oo ka mid ah ciyaalka derbiga fadhiya ayaa weydiiyey, yarey kaalay halkeed ka timid? saxarla ayaa intay joogsatay hoos u tidhi, waa lumay.
gabadhii ka midka ahay saddexda ciyaale ee gidaarka fadhiya ayaa intay qardaasyo dhulka ku goglanaa taabatay ku tidhi, kaalay halkan soo fadhiisa abbaayo. Saxarla ayaa kurdadii yarayd ee ay xidhnayd intay jidhkeeda ku asturtay meeshii ay gabadhu u tilmaamaysayna fadhiisatay. Gabadhii ayaa weydiisay, magacaa? Iyadoo ilqoodha ka eegaysa ayay ugu jawaabtay, Saxarla. Gabadhii yarayd ee darbijiifka ahayd ayaa tidhi, aniga magacaygu waa Batuulo, kanna waa Dooli, kaasna waa Dhuuri. Batuulo ayaa Saxarla weydiisay, ma baadiye ayaad ka timid? Baadiye? Saxarla oo fahmi weyday ereyga baadiye ayaa weydiisay Batuulo. Deeta Batuulo ayaa mar kale ku celisay, baadiye ma taqaanid miyaa? Dooli ayaa inta uu qosol ku dhuftay yidhi, artani waa qaldaan. Batuulo oo Saxarla u hiilinaysa ayaa intay tantooba ku dhufatay Dooli ku tidhi, yarow gabarta dhaaf, adigaa qaldaan iyo wax ka xun ahe. Batuulo ayaa intay xabad sigaar ah afka gashatay Dooli weydiisay, taraq ma haysaa? Dhuuri ayaa intii aanu Dooli u jawaabin yidhi, haa aniga ayaa haya. Saxarla ayaa ku dhaygagtay Batuulo iyadoo la yaaban gabadhan yar ee sigaarka cabaysa. Iska daa gabadh yar oo sigaar cabaysa, weligeed may arkin qof dumar ah oo sigaar cabaysa. Wejigii Batuulo ayay sii eegtay, waxaana ka yaabiyey inta nabar iyo booga ah ee ku yaala amase ka muuqda korkeeda. Batuulo ayaa Saxarla weydiisay, gaaja ma ku haysaa? Saxarla oo hadalku dirqi kaga soo baxaya ayaa ugu jawaabtay, haa. Batuulo ayaa tidhi, Dhuuri may raaci, gabadhan aan cunto u soo raadinayaaye. Dhuuri oo nuugaya daasad xabagi ku jirta ayaa ugu jawaabay, mashquul ayaan ahay ee idhaaf. Batuulo ayaa intay kacday Saxarla ku tidhi, isii suga baayo, waan soo laabanayaaye. Batuulo oo daasad bariiska buuxa sidata ayaa soo noqotay, waxayna aragtay Saxarla oo gidaar Dhuuri iyo Dooli ka durugsan taagan. Batuulo ayaa Saxarla weydiisay, abbaayo maxaa dhacay? Saxarla ayaa madaxa ruxday iyada oo ma aqaan ka wada. Markiiba waxay Batuulo fahamtay intii ay maqnayd inay wax dhaceen. Deeta Dooli oo ay ciyaala suuqnimo ku ogeyd ayay weydiisay, maxaad gabadha ku samaysay Dooliyow? Dooli oo nuugaya daasadii xabagtu ku jirtay ayaa ugu jawaabay, yaray joog, caawa kibir baa ku haye. Intay Batuulo u dhaqaaqday gidaarkii ay Saxarli taagnayd ayay ugu jawaabtay, warbax sharmuud yahow. daawadayaal intaas waxaynu ku soo afmeeri doonaa qaybtii koowaad ee buugga sheekafaneedda ah ee la magac baxay Saxarla oo uu qoray Faarax Maxamuud. qaybta xigta inta aynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo isarag dambe oo xiiso leh. waxaan ahayagoon urugada lano aqalka magalo arxaniyo daryeel badna kama usho ka igu onkoda aqalka magalo